السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب السودو هذا channel ka daawanaysa waa Nuno Academy. Kusoo dhaw saaxib channel sa ogtiin waxyaabo fara badan ayaan kusoo gudbinaa. Maanta waxaynu ka hadli doonaa qayb ku saabsan Facebook-gaaga. Saaxibo badan ayaa Facebook-gooda uu ka maqan yahay ama saaxibo badan ayaa la isticmaalaa Facebook-gooda. Laakiin maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sidii aad u ogaan lahayd in Facebook-gaaga lagu isticmaalo iyo in kale. Waxaad jeegarayn doontaa inaad Facebook-gaaga kaliya isticmaasho iyo inuu qof kale kula isticmaalo. Laba hab ayaan ku tusi doonaa oo aad ku jeegarayn karto Facebook-gaaga inaad kaliya ku tahay ama inuu qof kale kula wadaago. Saa ogtihiin maalmahan Facebook-gida password-da ayaa laga dhacaa ama qof saaxiibka ah oo aad ku kalsooneed ayaa Facebook-gaaga password-kiisa intuu garanayo ama kula isticmaalo ama aanan ku sheegin. Laakiin maanta waxaan ku tusi doonaa sifo aad ku ogaan lahayd in lagu isticmaalo Facebook-gaaga iyo in kale. kusoo dhawow saaxiib mar labaad Nuno Academy fadlan muuqaalka like saar sidoo kale channelka subscribe saar wada fiican ayaan ku soconaa saaxiib han xasdin muuqaalka like grey YouTube kana subscribe no saar aad iyo aad u mahadsantahay qaybta mobilka ayaan tagi doonaa xaggaas ayaan ka tusi doonaa labada wado ee aad ku ogaan lahayd in Facebook-gaaga lagu isticmaalo iyo in kale marka ayna wad oo qayb gareynaysa waxaad ku dhufanaysaa Facebook-gaaga markaa ku dhufatay kadib way Facebook-gaaga asaa dhax u imaadid waxaad ku dhufanaysaa saddex dhibcood iyo geeska ku taalo kadib waxaad imaanaysaa xaggan ay ku qoran tahay setting xagga markay ku qoran tahay waxaad imaanaysaa saaxiib password and security qaybtaas ay ku qoran tahay kadib sida u jeedin xaggan wuxuu ku soo dhigayaa inta telephone ama inta mobile ama inta PC ama saa u taqaan laptop waxa waay Facebook-gaaga laga galay marka waad iska jeegaraynaysaa hadii aadan kamid ahayn tusaale hadda Facebook-ga saa u jeedid waa aniga waxaan dhamaan hadii aadan kamid ahayn ama aad ku aragto waxyaabo ama inaadan Facebook-gaaga adiga soo galin ama telephone kale xaggan ku aragto ama Windows kale ku aragto ama laptop kale hadaad ku aragto saa u jeedin calaamadahan geeska ku yeela ayaad click siinaysaa kadib waxaad ku dhufanaysaa saaxiib xaggaas ay ku qoran tahay log out waad ka baxaysaa marka waa wadada koowaad ee lagu jeegareeyo in Facebook-gaaga aad adiga isticmaalayso kaliya iyo in kale aan kugu soo celiyo saaxiib xagga marka joogto Facebook-gaaga aad joogtid ee sidaan Facebook-gaaga u joogtid saddexda dot ayaad click siinaysaa kadib waxaad ku dhufanaysaa xaggan ay ku qoran tahay setting xagga marka setting ku dhufato haddana waxaad imaanaysaa xaggan ay ku qoran tahay password and security xagga marka click ku siiso saa u jeedid simo meesha ku qoran tahay ku dhufanaysaa marka waxa iska jeegaraynaysaa way kor waxa ku qoran where you logged in meelaha aad ka soo gashay hadii aadan adiga ahayn ama hadii uu ku jiro qof kale oo Facebook-gaaga kula isticmaalaya tartiib ayaad xaggaad ku dhufanaysaa waxaad ku dhufanaysaa log out oo qaybtan hoose kugu taasho uu ka baxaya marka device-kaasi ama mobile-kaasi laga soo galay uu ka baxaya marka iska jeegaray saaxiib Facebook-gaaga inaad kaliya isticmaalayso iyo in kale waa wadada koowaad wadada labaad waad imaanaysaa Facebook-ga qaybta searching-ka ayaad imaanaysaa ee wax laga raadiyo saa u jeedid waa qaybta searching-ka waa qaybta xagga waxaad ku qoraysaa saaxiib hacked ayaad ku qoraysaa hacked markaan ku qoro waan raadiyay sida u jeedid it's look like you are trying to change your password ayuu isoo qoray waxaan u maleynayaa ama waxay u eg tahay inaad isku dayayso inaad password-kaaga bedesho ayuu isoo qoray adiga marka hadii Facebook-gaaga uu qof kale kula isticmaalo intaanba kuma soo qorayo oo wuxuu ku leeyahay waxa waaye wuxuu ku soo saarayaa hacked caadi ah ama wixii aad raadiso oo iska caadiga ahayd ama dad wax dhacayo ama sawiradooda ama postiyadooda ayuu ku soo saaraya laakiin haduu account-kaaga kaliya aad isticmaalayso wuxuu ku leeyahay change password in setting ma ka bedel rabtaa password-ka setting-kaaga ma ka bedel rabtaa aan ku akhriyo meesha you can change your password in setting waxaad ka bedelan kartaa password-kaaga qaybta setting remember xasuusnow never share your password with anyone hala wadaagin password-kaaga qofna Facebook employees shaqaalaha Facebook-ga will never ask you to share your password directly weligood kuma weydiin doonaan inaad password-kooda si caadi ah aad ula share gareyso xagga waxay ka dhigan tahay Facebook-ga kuma weydiin doonaan shaqaalahooda adigana qof ha iskala share gareyn ayay ka dhigan tahay marka haddaan change password ku qabto hadii aad rabto password-ka inaad bedesho waxa ku soo bixi doona password-kaaga kadib wixii aad ku bedel lahayd laakiin continue result hadaan ku dhufto waxa ay soo bixi doona tusaale qaabkan ay soo bixi doona waa dadka la dhacay iyo waxyaabihii dhacay waxyaabahaas u jeedid waa dadka la dhacay dadkan waa dacwoonayaan tusaale gabadhan aan fiiriyo my account was hacked in April bay leedahay marka adiga hadii aadan Facebook-gaaga isticmaalaynin markaad hacked qorto qaabkan post people group iyo photos iyo waxyaabaas ayaa ku soo bixi doona laakiin hadii aad Facebook-gaaga kaliya isticmaasho waxa ku soo bixi doona sida u jeedid
qaybtan it's look like you are trying to change your password. marka waxaan u maleynayaa labada way ama labada wado ee Facebookaaga in waxa way laga dhacay iyo in kale ama inuu qof kula isticmaalo iyo in kale lagu kala garto inaad hadda garatay ayaan u maleynayaa. marka labada wadaba waa jeegreyn kartaa. wadada koowaad waa calaamadda inaad taabato. calaamadda marka taabato kadib aad setting imaado. setting marka ku dhufato kadib password and security aad ku dhufato kadib dadka aad fiiriso Facebookaaga waxa way device-yada ama meelaha laga soo galay aad fiiriso. haddii aad adiga ka mid ahayn calaamadda geeska 3 dhibcood taaba kadib log out ku dhufo. haddii aad tahayna iska badaaba waxaad imaanaysaa qaybta kale ku jeegran lahayd xagan search button-ka ayaad waxa ku qoraysaa hacked marka ku qorto kadib hadduu sidan ku soo saaro it look like you are trying to change your password hadduu ku soo saaro Facebookaaga kaliya ayaa isticmaal. laakiin hadduu sawirro iyo posti iyo dad la dhacay iyo waxyaabahaas hadduu ku soo saaro Facebookaaga kaliya ma isticmaashid ee waxaad u baahan tahay inaad iska jeegreys. aad iyo aad u mahadsantahay saaxiib yaal. haddii aad wax su'aal qabtid ama haddii aad jeclaan lahayd waxaan qaab kale muuqaal u soo sameeyno commentiga noo la wadaag aan ku xasuusiyo saaxiib subscribe inaad soo noo saarto dhiirigelin weyn ayaa